dhawada khayray halkani waa kala qabti TV aad ka daawan jirteen xogay ugu dambeeyay markaasi arrimaha bulshada ninkaas aad arkaysaan waa ninkii odaga ahaa waalidkiisa ay soo sheegteen ninka markaasi lagu magacaabo AJ dalka Mareykanka ay jooga gabar cadaan oo qaba waxay soo sheegtay maxaa la yiraahdaa female reer maxaa la yiraahdaa koonfur galbeed ah waxaan sheegay in hooyadaasi dadka ka maqan Ilaahay u sahlo asaguna oo san ahayn qofka ay raadinayso wuxuu sheegay inaan marnaba oosan doonaynin inuu been sheego hooyadaas wiilka ka maqnaa laha u sahlo laakiin aniga ma ihi wiilka ay raadinayso wiilkan farta ayuu ka go'an yahay fartaas dhex ayuu ka go'an yahay marka dad badan soo sheegtay in aan saaxiibana xataa kabtanka la yiraahdo asagana waxa familkiisa wiil fartaas ka go'an ka dhumay buraha ka meel u dhow ayuu ka dhumay hadda koor haddana ninkii inuu yahay looga shakisay yahay marka dad badan waxay leeyihiin war ninkan AJ ah ama uu yahay ninkii maxaa la yiraahdaa kabtanka groupkooda ahaa ama walaalkiis ahaa qaarna waxay leeyihiin maya maamadan soo sheegatay ama dhashay ninkan laakiin xaaladdu ma sahlano ninkan marnaba ma dhahay hooyaday aabahay waa kuwana way joogan maxaa la yiraahdaa halkaas ay joogan aniga waalidkay ma weysin ma dhahay haddana wuxuu leeyahay hooyo qofka raadinaysa aniga ma ihi ay ugu tashanin qof haday ka maqan tahay Ilaahay ku sahlo laakiin aniga ma ihi marka waxyaabo badan isdaba marsan oo dadku markay waalid wax waayaan qof walba wiilkooda had korna Yusuf la yiraahdo dadka wareeriyay oo mar Soomaaliland tagay mar Afgooy tagay mar Baydhabo tagay mar wuxuu tagay maxaa dawlad deegaanka Soomaalida markuu dambeeysan waa iska muuqbaalo meel ku dambeeyo ma yaqaan marba qabiil soo dhahay idinka idin hay halkaan isku dhiibay maxaa la yiraahdaa saasay xaaladdu ku horeeyay Yusuf ninka la hadda ninkan AJ la yiraahdo asagana waa la isku haystaa xaaladdu marka ma sahlano dad badan dagaalada kala lumeen waxaa la sheegay eridan luuq ilaa inta u dhaxaysa Baydhabo iyo meelahan gobolka Gado dagaalada markay dhaceen dad badan ay ku lumeen oo markaasi telefoonada aysan jirin waa 92 94 95 96 ilaa 98 dagaalo socday RRA-da iyo u dhaxay maxaa la yiraahdaa balaar ciidid qolada hogaaminaya 96 wixii ka horeeyay ciidid 96 dhintay marka dad badan lumay oo iswaayay telefoonada lama aqoonin oo telefoon meel loo diro lama garanay dadka magaalka oo magaalooyinka waaweyn jooga kaliya telefoon leeleen isku diri jiray leelena waa taqaanaa xaafado isku dira laakiin wadan isku ma dira ama magaalo isku ma direen marka xaaladdu ma sahlano ninkan AJ wuu inkiray inay maamadaas dhashay wuxuu leeyahay aniga gabi ahaanba maamo ma ihi qofka raadinaysid hana igu tashanin wiilkaadana si kale u raadso maamadan waxay leedahay DNA ku qancaa asagana wuu diiday wuxuu aniga DNA wax la yiraahdo iyo barnaamijkaas ma gali karo aniga ma doonayo inaan u been sheego ma doonayo inaan waqti ku lumiyo marka wuxuu yiraahdaa aniga ma doonayo mana ihi cid aan raadinaysid marka xaaladdu ma sahlano dad badan ama qad Ilaahay soo sahlo oo dadka qofba dad badan dadka maqan yihiin oo ka dhinteena jiro ama xataa nolol gari lagu heeyno nolol xataa aan ogeyn dad badan aniga naftkeyga arkay oo maqan oo waqti hor lumay haddana aan markaasi qaarkoodna meel lagu soo sheegay ana adeerkay ayaa kamid ah had koor waqtigii dagaalka siyaad bare ayaa la waayay kadibna muddo 7 sano ah ayaa la weysnaa waxaa laga helay Hargeysa ugu dambeyntii magaalada Muqdisho ayuu markaasi yimiday 7 sano kadib dagaalku markii 91 la kala qaxay ayaa la waayay wuxuuna yimid 97 asagoo markaasi socdo Muqdisho ka soo degay intaas waa la weysnaa waa 7 sano ku dhawaad ayuu maqnaa marka qofku markii oo maxaa la yiraahdaa oo lumo ama markaasi cidiisa asagoo markaasi raadinin waxaan isleeyahay ninkan 10 jir ah markii uu lumay sida ay sheegayaan 10 jirna wax badan oo og yahay hooyinkiisa waalidkiisa uu sheegi karaa lama garan karo marka sababta hadda la isku jijiidayo dad badan soo sheegtay way jiraan maam Franco nina soo sheegtay way diiday xitaa ninkaas wiilkayga baha ninkan hooyada soo sheegtay hooyadana wuxuu hooyada ma marba arki doonaa wixii ka soo kordhay halkan ay ka daawan doontaan barnaamij share gareey meel fogna gaarsiinta barnaamijka kulmi doono fi amaan Allah